السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي قبلهنا قيمها بدن waxaan casharkan yarka halkan aan kusoo gudbina insha Allah waa xiriirka ilmaha iyo waalidka qurbaha halkan waxaa noogu jira kumaan ahay waa qof israadinaya halkan waxaa noogu jira is aqoonsigii iyo maaragtay muuqaalka gudaha ku jira oo cunuga oo ah muuqaalka sare iyo waxa gudihiisa ku jiro inay badan tahay waxa ilmihiisa gudaha ku jiro marka waxaa loo baahan yahay isku dheelitiran inaan isku dheelitirno cunuga israadinaya oo kumaan ahay leh muuqaalkiisa sare iyo gudihiisa qofka ahna uu kala duwan yahay markaan qurbaha joogno tusaale wiilkan yarka ah waa wiil yaroo Soomaaliyeed waa xanaanadii ama dadkii dalka uu ku nool yahay ilmahaas meeshay doonta ha noqoto kuley hadda gacan cadaan soo qaatay iyo gacantii waalidkii labada dhinacba isla hayaan oo macnaha isla barbaarinayaan barbaarintan marka waxaa la rabaa inay noqoto mid isku dheelitiran oo aysan hal dhinac u liicin si ilmaha uu dalka uu joogana uu wax ugu taro ula qabsado ugu noolaado nolol qurux badan meeshii uu waalidkiis ka yimid asalkiisii iyo dhaqankiisiina uusan ka tegin marka wax yar waxaan isla eegaynaa insha Allah wixii aan isdhihi karo way ku habboon tahay halkan gabadhan waa gabar qoraa ah cilmi baare ah waxay macnaha qoraalkeedan aan ka soo qaatay ilmaha yar inta uu yar yahay in uu dareensan yahay inuu u baahan yahay waalidkiis haddii laga mashquulana ee macnaheeda ay tahay inuu ilmahaas yarka isku arkaayo inuusan hooyo iyo aabba midna aysan u arkin qof u qalma in la haayo oo waqti lala qaato marka waxayba kasoo bilaabataa sabinimada iyo maaragtay ilmanimada abaabka hore inuu ilmaha rabo doonayo waalid u dhow oo maaragtay la qaato waqti fiican oo quality leh ku faraxsan la joogistiisa u arka inuu u qalmo da'da iskoolka marka doorka waalidka iyo waxbarashada waxaa halkan marka nooga muuqato sida ku cad natiijada cilmi baarista la sameeyey ee hay-adda fayadhowrka iyo maaragtay caafimaadka dalkan Finland ay samaysay in ilmaha oo maaragtay xilliga iskoolka gaara ay aad muhiim ugu tahay nolol maalmeedkooda iyo ka qayb qaadashadooda waxbarashada waalidka weliba caruurta markay gaaraan da'da fasalada 4aad iyo 5aad marka cilmi baaristan waxay leedahay caruurta fasalada 8aad iyo 9aad waxay macnaha waxaa badan heerka 40% inay caruurta dareemaan qoysaska inaysan waqti ku filan la qaadanin halkaas marka maxaa ka cad ilmihii inay dayac badan ay ku jiraan kuweena marka Soomaaliyeed tan waa cilmi baaris gudaha dalkan laga sameeyay laakiin kuweena Soomaaliyeed maxaa noo dheer annaga waxaa noo dheer in marka horeetaba aan isku quflinay dhaqan ah ilmaha bulshada kula korisa laakiin meeshaas lama joogo waa laga soo tegay meel waxaa la joogaa ilmahaaga adiga aad korsanaysa aysan bulsho kula korinin haddii aad u dayso inay bulshada kula koriso ama kuu korisana ay noqonayaan ilmo aan adiga kuu xisaabsanayn oo aadan xisaabsan doonin sidaas si lamida ilmahaas yar la dayacay naftiisa iyo mustaqbalkiisa intaba dayac weyn uu ku jiro in badan oo ka mida marka ay sabab u noqotay in ay nolosha si aan fiicnayn ama si aysan ku faraxsanayn ay ugu dhammaato marka ilmihii waxaa la yiri maadaama ay waqti dareemayaan waqtiga marka muxuu noqon karaa qasab ma aha waalidkii inuu safar aado inuu maaragtay lacag iyo qarash badan ku bixiyo laakiin waxaa la samayn karaa in fiidkii la wada sheekaysto buug loo akhriyo safaro kooban oo samarkoo kale meelaha lala soo wareego jikada la wada galo wax loo diro loo tuso ilmihii inuu muhiim yahay si un aysan ahayn keliya maaragtay in dhaqaale la huro laakiin waqtiga la huro ay ka qiimo badan tahay in dhaqaale la huro gabadha ama aabbaha ama inta badan hooyaanba dhahaynaa caawa aabbaha waa ka tegaynaa hooyada waa doorka ugu muhiimsan oo ilmaha noloshooda haddii marka hooyadii xilligii ay ilmaheeda la qaadan lahayd inta markay shaqada kasoo baxda magaalada soo marto kafee fadhiisato ama sheeko gasho
waxa waaye ilmahaas ayay ka go'an tahay waqtigaas waxa ay ku sugan yihiin ma oga waxa ugu macnaha fudud waxay tahay in laba walaala ah si fudud isugu gacan qaadaan waayo waalidkii yac kala dhihi lahaa meesha waa ka maqan yahay marka sidee macnaha cunugii naftirkeeda dhaqaalo loogu samayn karaa ama dhaqaalo loo gelin karaa gadaalaan uga hadlaynaa insha allah labadan guri labadan macnaha dhismahan halkan ku jira wuxuu ku taagan yahay dhagaxaas dhismahaana wuxuu u taagan yahay sidaan waxaa suurtagala marka markaa isweydiiso inaa istiraahid maxay tahay marka labadoodaba waxay ku harka ay ku jiraan waa badweyn tusaale ahaan waa iska maaragtay sawir maskaxeed laakiin dhagaxan ma celin karo sartan waxay la mid tahay in ilmaha barbaarintiisu hore aysan sidii la rabay u dhisnayn markii uu weynaado ma noqon karo qof hal mar markuu weynaado wax walba u hagaageen laakiin marka uu yar yahay marka si isu dheeli tiran loo koriyo waxaa dhici karta marka uu weynaado inta dhiman inuu asaga dhammaystiro haddii ilaahi subxaana watacaala maaragta uu la garab galo maxay tahay marka muhiimadda waalidka intuu cunuga yar yahay intuu cunuga yar yahay waa in qofka mustaqbalka uu noqonayo lagu kaalmeeyo lasii dhiso waqti la geliyo lala joogo hadba intay tabartaada tahay aad ku caawisid oo aysan noqon inay bulshadu kuu korinayso kadib waxaa dhici karta markuu weynaado wixii la geliye markay uu yaraa wax un waa ku haraayaan cunugaas xataa haddaysan 100% ku harin wax un waa ku haraayaan okay waalid walba marka wuxuu ku fekeraa inuu ilmihiisa lacag u dhigo injineer noqdo dhakhtar noqdo maaragtay laakiin cunugan lacagta aa u dhigaysa ama aa u diyaarinaysid kaagama baahna waalid markaa tahay isagaa mustaqbalka dhiganaya laakiin waa inaa asaga ku dhex shubto inaa asaga ku dhex shubno oo aan diyaarino cunug asaga isdaberi kara shaqaysan kara ummadda fahmi kara naftiisa wax tari kara lacagta aa u diyaaris wax qiimo ah lama lahan laakiin waxaa ka qiimo badan markuu asaga shaqaysto okay waxaa laga yaabaa marka cunugii aan asaga la diyaarin in waalidkii guri u maaragtay diyaariyey oo halkan uu ku fekerayo maaragtay mustaqbalkaas quruxda badan oo cunugiisa laakiin meeshan waxaa ku jira waa qolof maran oo eber ah oo aan waxba lagu dhex diyaarin marka gurigan wax macnaa uma samaynayo gurigan weyn waxba macnaa uma samaynayo cunuga waxaa uga qiimo badan hal maalinood la fadhiisato u sheekaysa intuu yaraa buug yaro aad usoo iibisaad u akhrisay ciyaar yaroo aad la ciyaartay waana yaroo aad u sheegto wax u sheegtay oo tiraahdo waxaan hooyo saan iyo saan mustaqbalkaaga aaba kan iyo kan ayaa uga qiimo badan hanti badan oo aad tabacdo waayo hantidan waxba cunugan qiimo uma leh xusuus kasto waxaa la sheegaya cilmi baaris waxaa la yidhi Egypt laga sameeyey oo 3,000 oo carruur ay kasoo qayb galeen ama dhalinyaro ah ayaa waxaa la weydiiyaa la yidhi qof walbow sheeg wax aa waalidkaa ku xasuusato waxaa la yidhi 3,000 oo arday intooda badan waxay ka hadleen si u dhammaayeen dareen maalin baa hooyaday iga farxisay maalin baa aabahay iga nixiyey maalina aabahay iga farxiyey maalina hooyaday iga nixisay ma jirin qof dhahay hooyaday aabahay hantiyay iiga tageen marka halkaas maxaa ka cad ilmaha hanti kastoo loo tabco inay ka qiimo badan tahay dareen waalidnimo oo la geliyo hadal macaan ha noqoto la sheekaysi ha noqoto la socosho duurka lala soo socsocdo ha noqoto inta hadba awoodda ay tahay marka waxaan usoo gudbaynaa ahmiyaddeenii ahayd afka hooyo iyo doorkiisa afka hooyo geedkaas aa u jeedaan ee qofka bini'aadanka ah gudihiisa uu ka dhex baxay waxaa lagu masaalay inay tahay afka hooyo qiimaha afka hooyo marka linkiga halkaas saaran waxaan kasoo qaatay xigasho dhowr ah oo dad kale oon soomaali ahayn iyo qaabkay u arkaan afka hooyo aan rabaa insha allah inaan idinla wadaago gabadhan biya la leeyahay asalkeeda waa Finnish Swedish ah marka waxay ka hadlaysaa qiimaha iyo maaragtay ahmiyadda afka hooyo uu leeyahay gabayaa jira ay ka tirisay afka hooyo aan hadda aanan soo qaadan laakiin ay leedahay afkaygii hooyow markaan kaasoo tegay hooyigeenii wadnahaygaad macnaha iigu suganta haddii af soomaaliya laga dhigo marka afka hooyo ama luuqadda koowaad waa luuqadda uu ilmaha marka u horeyso barto oo ah markuu caloosha hooyadiis ka soo baxo marka ugu horeyso dhabta la saaroo lahaba waxa ugu horeeya codka ugu horeeya uu maqlo waa afkiisa hooyo afkaas marka muxuu yahay muxuu muujiyaa dareenka qofka waxaana lagu magacaabaa sidoo kaleeto luuqaddii qalbiga marka
barashadeeda iyo is-aqoonsigeeda afka hooyo wuxuu taageeraa qofka ilmaha inuu luuqado kala barto uu u fududeeyaa sidaasi la mida biye waxay tiri macnaha halkeen ka soo jeedaa asalkaygu waa halkee afka hooyo sidoo kale wuxuu muhiim u yahay horumarinta is-aqoonsiga ilmaha inuu cunuga isfahmo horta yaa tahay adi waana muhiim in uu fahmo halka uu asalkiisa ka yimaaday luuqadda waxay ilmaha ku xirtaa qoyska ehelka sidoo kale waxay isku xirtaa dadka waddanka uu kula nool yahay oo ah dadka ay isku afka yihiin qaraabada mar haddaan xiriir jirin ka dhexeeya ehelka iyo ilmaha waalidka walaalaha waxaa dhumaya guud ahaanba qofka qofnimadiisii marka afka hooyo ma ahan oo keliya in lagu hadlo laakiin waa af xambaarsan identity iyo is-aqoonsi iyo is-ahaansho uu cunuga u maaragtay si guda ah u dareema cunuga afka hooyo ku liita ama uu ka maqan yahana inta aan soo sheegno dhan waa ka maqan yihiin oo ah kalsoonidii is-ahaanshihii is-aqoonsigii mar walba cunugaas identity crisis waa ku jiraa noloshiisa moor uu cunuga isaga isku mashquulsan yahay qofkeen ahay xaggee ka imid maxaan ahayna waxaasoo dhan waxay hor istaagaysaa horumarka noloshiisa waxbarashadiisa laakiin cunuga marka uu dareensan yahay qofka uu yahay halka uu kasoo jeedo xitaa haddii uu la kulmo takoorid ama maaragtay cunsuriyad ama dhibaateyn bannaanka dadka ah saameyn kuma yeelanayso marka uusan aqoon qofka uu yahay laakiin marka uu is yaqaano dee wuu ogyahay halkuu ka yimid waxa sababta loo cunsuriyeynayo wuu ogyahay sababta loo riixayo wuu ogyahay oo ma aha qof ku jahwareersan maxaan ahay marka afka hooyo ma ahan oo keli ah saan sheegay barasho ee waa qofka noloshiisa oo dhan ayay ku xeeran tahay oo maaragtay ku dahaaran tahay afka hooyo iyo qiimeyntiisa iyo muxuu macnaha qiimaha uu noo leeyahay dhaqanka ayaa qeexa qiyamka caadooyinka diinta waxaasoo dhan waa qayb afka hooyo ka mida dhaqanka afka hooyo hoos gala gabdhahan marka labadan gabdhood oo soomaaliyeed maryan cali iyo sumaye gadiid oo ah reer Finland buuggooda qalinjibintan in yar ka soo qaatay oo maaragtay dhaqanka iyo qaabkii u arkaan dadka marka dunida ku nool oo isku dhaqanka meel kastoy joogaan isku hab dhaqan bay leeyihiin sidoo kale marka dhaxalka waalidka dhaxalka ugu wanaagsan oo waalid uu ka tegi karo waa inuu ilmihiisa bara afkiisa hooyo waa dhaxalka ugu wanaagsan sababta maxay tahay sababta waxay tahay noloshaan waa qori isku dhiib waalidka wuxuu kuu dhiibay dhaxalkaas waxaa ka mid ah inaad taqaanid afkaaga hooyo inaad ku hadashid inaad fahantid inaad garanayso qofka aad tahay marka waxaan ku talin lahaa waalid kasta oo soomaaliyeed qori isku dhiibkii ay waalidkii siiyeen inuu asagana ilmihiisa siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin intaasaan caawa cashirkeena kusoo koobaa asalaamu calaykum